kulanti wacan wanaagsan daawadayaal soo dhawaada waxaan idinla wadaagaynaa nabadoonka guud ee beesha Hubeer oo war ka soo saaray colaadaha ka socda gobolka Shabeellaha Hoose xilli Daahir Amiin Jeesow oo ah xildhibaanka beesha Gaaljecel ku matala halkaasi uu ku eedeeyay in isagu colaadahaasi uu hurinayo maleeshiyaadkii shalay ka dagaalamay deegaano hoostaga Walaweyn isaga uu abaabulay dhibaatooyinka iyo eedeymaha dul hoganaya ayuuna sharaxay nabadoonka guud ee beesha Hubeer ahaan ayuuna sheegay in iyagu colaadaha aanay hurinaynin dagaalka ninka xumeeyay dagaalka ninka qaabdaro ku sameeyay ninka la yiraahdo xildhibaanka federaalka Daahir Amiin Jeesow kan ariga kharibay kan meesha maleeshiyaadka geeyay kan xaaladda saa u qumuriyay oo haleeyay ariga dhan ku dheelay asagana hada dad baaba eedeynaya meesha meeqa bilood uu fadhiyay sanad uu fadhiyay ku dhawaad waan idin wadaagi doonaa Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee dawladda ku-meel gaarka ahayd isaguna afka ayuu furtay colaadahan ayuu ka hadlay dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ayuu ku eedeeyay in dhagaha ay ka fureysatay qodobadaas iyo wixii lagu soo kordhay in idin falanqeyn doonaa soo dhawaada muuqaalka sheergaray ee gaarsiiya baraha bulshada qaybahooda kala duwan ku mahadsanidin aynu ku bilownay nabadoonka guud ee beesha Hubeer ee dega Shabeellaha Hoose qaybo kamid ah ayaa war lama filaan ah wuxuu ka soo saaray colaadihii shalay ka dhacay qaybo kamid ah Walaweyn oo deegaano hoostaga shalay guryo aad u fara badan la isaga gubay halkaasi iyo sidoo kale in la laayay dad gaaraya ilaa iyo 25 qof oo lagu xasuuqay dagaaladii shalay ka dhacay halkaasi dagaalada muddada ay socdeen waxaa barbar soconayay in la gubay tuulooyin aad u fara badan oo beeluhu ay iska gubayeen tuulooyinkan waxaa la yaab lahaa hal guri oo kamid ahaa tuulooyinka la gubay in lagu dhex gubay 6 qofood oo isku qoys ahaa kuwaasi oo dab lagu qabadsiiyay gurigaasi isla markaana dadka deegaanku sida ay soo warinayeen la badbaadi waayay sidoo kale colaadtii ugu xumeed ayaa weli ka taagan gobolka Shabeellaha Hoose welina wax wara kama uusan soo saarin maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo halkaas ay ka tirsan tahay maalintii la soo dhaafay ee shalay ahayd ayaa colaadda ugu weyn halkaasi ay ka dhacday nabadoonka guud ee beesha Hubeer ee Shabeellaha Hoose oo shir jaraa'id qabtay ayaa waxa uu si kulul ula hadlay xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ku tilmaamay mid Ilaahay ka cabsanaynin inuu yahay waxa uu sheegay inuu isagu abaabulayo hurinta colaadahan waxa uu abaabulay buu yiri maleeshiyaadkii ugu badnaa kuwaasi oo dhibaato ka geystay deegaano ka tirsan Shabeellaha Hoose shacab ayaa la dilay dad ayaa la xasuuqay dhibaato kastoo ka dhacda labada meel ma ahan mid aan ku qanacsanahay buu yiri nabadoonkan waxa uu Allah uga baryay intii ku dhimatay colaadaasi labada dhinac in naxariistii janno uu ka waraabiyo kuwa ku dhaawacmayna caafimaad degdeg ah uu siiyo haddii uu yahay nabadoonka beesha Hubeerna uu taagan yahay in mar waliba xal waara laga gaaro colaadahan soo laalaabtay ee ka taagan Shabeellaha Hoose colaadan waxa ay soo bilaabatay 3 bilood ka hor kadib markii maleeshiyada hubeysan isla markaana lagu sheegay in qaarkood ay yihiin ciidamada daraawiishta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay beegsadeen deegaan hoostaga Walaweyn kaas oo ay ku sugnaayeen dad xoolo dhaqato ah oo xilligaas shubayay amaba biyo siinayay geel iyagu ay lahaayeen xilli halkaasi lagu weeraray isla markaana 12 qof looga dilay halkaasi colaadan tan iyo markaas waa ay sii xoogeysatay oo waa ay kala aarsanayeen beeluhu ilaa ay gaartay in qof nool dab inta loo shido lagu dhex tuuro amaba cay lagu shido oo lagu gubo tani ayaana waxaa ka dhalatay carada Allah iyo sidoo kale fadeexado ka dhan ah xuquuqda aadanaha iyadoo dhibaatadan ay ahayd tii ugu xumeyd abid ee ka dhacda guud ahaanba gobolada dalka dhibaatooyinka dhacayay tan iyo waqtigaas waa ay si laba jibaarmayeen oo beeluhu waxa ay ku kala aargudanayeen in guryo ay kala gubaan in ay beegsadaan dad rayd ah oo aanan waxba galabsanin isla markaana birbigeenda isuguna jiro haween caruur iyo sidoo kale dad da ah haddaba nabadoonka beesha Hubeer hadalka uu jeediyay waxa uu ku tilmaamay xildhibaan Daahir Amiin Jeesow inuu yahay mid doqon ah oo aanan ka naxaynin bulshada Soomaaliyeed ee degan Shabeellaha Hoose ee walaalaha ah
waxa uu abaabulay maleeshiyaadkii ugu badnaa. Waxa uu ku amray inay weeraraan dad aanan waxba galabsanin. Annagu raalli kama nihin colaad inay ka taagnaato deegaanada Shabeellaha Hoose. Dadku waa dad walaalo, ehel iyo qaraabo intaba isu ah. Waxaa noo muhiim ah in dadku ay heshiiyaan. Haddii aan ahay nabadoonka beesha Hubeer, odayga 60 sano jirka ahaa ee halkaas lagu gubay ma ahayn mid aanan raalli ka nahay. Dad waxaasha ayaa geystay dhibaatadaas, waynu ka garaabaynaa dhib kastoo dhaco. Wuxuu yidhi waxaynu dhexda ka qaban doonaa hadda dhibaatooyinka taagan si loo gaaro xalal waara, ayuu yidhi nabadoonkan oo wareysi siiyey mid ka mid ah warbaahinada ka howlgala magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Nabadoonku Daahir Amiin Jesow oo ah nin mas'uul ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana xildhibaan ah ayuu ugu baaqay in colaadahaas si degdeg ah loo joojiyo isla markaana uu iska daayo abaabulka colaadaha uu ka wado deegaanadan, maadaama shacabku ay yihiin dad walaalo ah isla markaana ay isxasuuqayaan, dhibaatooyin aad u xoogganna ay isu geysanayaan. Nabadoonkan ugu dambeyn waxa uu soo saaray baaq nabadeed. Baaqaas waxa uu u jeediyey beelaha halkaas ku dagaalamaya oo beeshiisa ay ka mid tahay uu nabadoonka u yahay. Wuxuu yidhi colaad dhiig ayaa ku daata oo wiil kuma dhasho. Hala joojiyo colaadaha sida ugu dhaqsiyaha badan. Isaga oo weerar afka ah ku qaaday Daahir Amiin Jesow oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Madaxweynihii hore ee dowladdii ku-meel gaarka ahayd ee Soomaaliya Mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa dhankiisa isaguna war ka soo saaray colaadahaasi. Ugu horreyn waxa uu ka tacsiyadeeyey Shariifka dadkii ku dhintay colaadihii xoogganaa ee shalay ka dhacay iyo odaygii ka horreeyey ee sida arxandarrada ah loogu dilay qaybo ka mid ah Shabeellaha Hoose. Dagaalku ay dagaalamayaan waa dagaal gumeed. Haddii mas'uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya dhagaha ay ka fureysteen, innagu dhagaha kama fureysan karno oo waxaanu ka mid nahay dadka mas'uuliyadda dusha u ridanaya ee xilligan iyagu laga raba in ay waanwaan dhex dhigaan dadkaasi. Wax kastoo dhacay waan ka xunnahay. Waxaan ka tacsiyadaynaynaa ehel iyo qaraabo iyo asxaab dadka halkaas ku dhintay. Intii ay ka baxeen iyo ummadda Soomaaliyeed kuma faraxsanin in colaado beeleedyo xilligan dhiig uu ku daato isla markaana shacab ay isku xasuuqaan, dowladdii dhexena ay indhaha ka fiirsato. Xukuumadda dhexe ee federaalka Soomaaliya iyo madaxda ugu sarreysa ee dalka ayuu ku eedeeyey colaadahan iyaguna inay dusha ka daawanayaan isla markaana ay kaga mashquuleen arrimo shakhsi ah oo ay ka mid yihiin arrimaha siyaasadaha isdiidan ee dalka, arrimo doorasho iyo sidoo kale kuwo safar. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa eedaha ugu badan hadda ay dul hoganayaan, iyadoo hadda beelaha dagaalamaya beeshiisa isagoo uu ka dhashay ay isku xisaab yihiin oo ay yihiin beesha Hubeer oo madaxweynuhu si qaas ah isaga uga soo jeedo iyo beesha Gaaljecel oo halkaas iyagu ku dagaalamayo. Madaxweynaha ayaa la rabay in uu xil weyn iska saaro arrintan, balse dhagaha ayuu ka fureystay, irdaha ayuuna ka xirtay. Colaadaasi dusha ayuu ka daawanayaa. Maamulkii ugu xumaa ayaa lagu tilmaamay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya xilli siyaasiyiinta falanqeeya arrimaha siyaasadda arrimahani si kulul ay uga hadleen. Colaadahaasi ka taagan weli kama aysan hadlin culimo-diinka waxgaradka deegaanka ee looga baahnaa iyagu inay hagaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka reer Koonfur Galbeed ee walaalaha ah ee halkaas isku laynaya. Dadku inta ugu badan waxa ay isku hayaan dhulal lahaanshiyahooda ay sheeganayaan kuwaas oo ku yaala Shabeellaha Hoose. Dhibaatada ugu badan mar waliba waxa ay ka timaadaa beesha Hubeer lagu tilmaamo oo hadda iyagu awoodda ugu badan ee Koonfur Galbeed iyagu isbido, maadaama madaxweynaha maamulkaasi Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen uu ka soo jeedo beesha Hubeer. Laftagareen waxa uu ku dhex jiraa ceebtii ugu weyneed. Hadda ilaa iyo hadda kama uusan hadlin marasta iyo dadka barnaamijyada ah ee halkaas lagu xasuuqayo, waana maamulkii isaga mas'uulka uu ka ahaa. Maalintii shalay ahaa war la soo saaray isla markaana booliska iyo sidoo kale ciidamada daraawiishta saraakiishooda ay soo saareen, waxa ay ku sheegeen inay ku raad joogaan rag looga shakisan yahay dilka
oday 60 sano jir ah oo lagu dilay qaybo ka mid ah Shabeellaha Hoose islamarkaana masiibooyinkii ugu waaweynaa ay ka dhasheen dilka odaygaasi. Odaygan ayaa baraha bulshada lagu baahiyay muuqaal xanuun badan oo ay garaacayaan rag iyo dumar aad u fara badan iyaga oo rasaaseynaya kadibna isaga oo nool balse dhaawac weyn qaba dab qabadsiinaya. Halkaas ayayna ka dhasheen dhibaatooyinka ugu weyn ee hadda ka taagan koonfur galbeed Soomaaliya. Xalay ilaa iyo shalay galabtii dagaal soo gaaray ayaa halkaas ka dhacay. Dagaalkan dhimashadu in ka badan 22 qof ayay maraysaa, dhaawacyaduna halkaas waa ay ka badan yihiin. Waxaa la gubay tuulooyin aad u fara badan oo hoostaga Shabeellaha Hoose. Maamulkii gobolka Shabeellaha Hoosena dhagaha ayuu ka fureystay oo gudoomiyuhu marka laga reebo in 4 qof la soo qabtay waxwara kama uusan soo saarin colaadahan ka taagan Shabeellaha Hoose. guud ahaan siyaasiyiinta mucaaradka ayaa baaq nabadeed soo saaray, waxa aynu ugu baaqeen in colaadahan sida ugu dhaqsiyaha badan loo joojiyo maadaama dhibaatada hadda ugu weyn ay wajahayaan dadka marasta ah oo ay ku dhacayso abaarta daran iyo sidoo kale gaajo aad u ba'an haddii colaad loogu daro in dhibaato tii ugu xooganeed ay wajihi karaan. Shariif Sheekh Axmed waa uu hadlay mar uu hadal kooban jeediyay islamarkaana uu kaga hadlayay arrimaha colaadaha. sidan ayuu yiri: Bismillahir Rahmanir Rahim, alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah bacd. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu. Waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan gudaha iyo dibadda. Warkaygu wuxuu ku saabsan yahay arrin aan wanaagsanayn oo shalay iyo maantaba ka dhacday degmada Walnaweyn oo runtii dad la dilo, guryo la gubo, dad la gubo. Arrintaasoo dadka Soomaaliyeed aysan dhaqan u lahayn, islaamnimada aad ugu xun, dadnimada aad ugu xun. dadka la dhibaataynayna dad wax galabsada aan ahayn. dadka Soomaalida maanta baahi u qaba hoy ay galaan in maanta hoy la gubo ama qof nool la gubo waa dhaqan aad iyo aad u xun. arrintaas aad iyo aad ugu xunnahay, waa ka tacsiinaynaa. waxaana mataqaanaa dadka arrintaas abaabulaya ama ka shaqeeyay ugu baaqaynaa inay degdeg u joojiyaan. dowladda iyo dowlad goboleedka waxay ahaato maxaan ku yiraahdaa koonfur galbeedna inay tilaabo arrintaas ugu joojinaya ay qaataan. sidaas oo kale odayaasha dhaqanka ama duubabka, culimada, waxgaradka, dhalinyarada inaan la ogolaanin arrimo noocaas inay dalkeena ka dhacaan. dembi iyo dhibaato waxaana soo gaaray ayaa naga badan. baahi looma qabo maanta falalka noocaasa. marka aad iyo aad ugu xunnahay. waxaan ugu baaqaynaa dhammaan qof kasta oo qayb ka qaadan kara inuu joojiyo inta dhibka gaaran allaha u boogadhayo. wixii mataqaanaa la waayay oo hantiyana ilaahay bedelkooda qaba khayr ha siiyo. maanta qof in la dilana looma baahna, guri in la gubana looma baahna. waxaa loo baahan yahay waxa waaye in la helo nabad iyo isku kalsoonaansho iyo in wax la dhiso oo wax hore loo mariyo. aad iyo aad mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. maalmihii la soo dhaafay deegaano iyo degmooyin dhaca dhinaca degmada Walnaweyn ee Shabeellaha Hoose waxaa ka taagnaa xiisadahan ka dhashay dilka loo geystay odaygaas 60 sano jirka ahaa, iyadoo dhibaatada ugu weyn ee hadda taagan ay tahay in weli xiisado dagaal halkaas ay ka taagan yihiin islamarkaana maamulka koonfur galbeed uunan soo faragelinin dhibaatooyinka halkaasi ka taagan. waa ku mahadsantihiin daawadayaal muuqaalada halkan aan idinku soo gudbino. muuqaalka laag saar, sheer garey, gaarsiiya baraha bulshada qaybahooda kala duwan.